hadalla aysan jeclaysan dadka Soomaaliyeed ayay si adag uga jawaabtay dawladda Soomaaliya kadib markii saacadihii la soo dhaafay warar soo baxay ay sheegayeen in madaxda Soomaalida ah shir ay ku yeelanayaan xalane halkaasina looga wacay jawaab degdeg ah oo ka soo baxday dawladda Soomaaliya ayay si adag uga jawaabtay wararkii la saddex mariyay kaas oo sheegayay in madaxda Soomaalida ah looga yeeray xalane halkana ay ku shiri doonaan shirna ay ku yeelan doonaan hadalladan dadka Soomaaliyeed aad ayay uga xumaadeen waxayna qaateen qaarkood wararkii sheegayay in Soomaalida laga xukumo xalane hase yeeshee dawladda Soomaaliya ayaa si adag uga jawaabtay waxayna sheegtay inaysan jirin shir ka dhacaya xalane oo Mareykanka uu u qabanayo madaxda Soomaalida ah dawladda waxay sheegtay ama ay diidaba inuusan jirin shir iyadoo ay ogtahay oo ka dhacaya gudaha xalane madaxda Soomaalida halkaasina ay isugu tagayaan markii iyagu ay isfahmi waayeen Mareykanka uu u yeeray si uu u dhaxdhaxaadiyo ayay dawladda warkan sidoo kale ee ka dhigtay mid waxba kama jiraan ah saacadihii la soo dhaafay dadka Soomaaliyeed ayaa aad uga xumaaday wararka sheegayay in madaxda Soomaalida ay tagayaan xalane hase yeeshee dawladda waxay sheegtay inaysan ba ogeyn sidoo kale uusan jirin shir ka dhacaya gudaha xalane oo madaxda Soomaalida ay yeelanayaan Mareykanka ayaa saacadihii la soo dhaafay sheegayay inuu madaxda Soomaalida isugu yeeray in xalane ay ku shiraan ayna ka heshiyaan arrimaha isku hayaan xilligan doorashooyinka iyo arrimaha kale ee kala guurka dawladdu waxay sheegtay inaysan ba ogeyn shir ka dhacaya xalane waxay sheegtay in haddii uu jiro shir u dhaxeeya Soomaalida gudaheeda uu ka dhacayo filla Soomaaliya iyo meelaha kale ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isbitaalka Amora Specialist waxa uu dalka keenay qalab casri ah oo adigoo aan qalin lagu marsin ama dawo lagu siin ayaa laga daaweynayaa hameeyirida ragga waxaan xaadir kugu ah isbitaalka dhaqaatiir PhD sidata oo 20 sano wax ka badan ka shaqeynayay cilmiga cudurrada ragga sidoo kale warar hoose oo banaanka aan imaan ayaa sheegayay in dawladda ay ku adkeysanayso in kulankii ay isugu yeertay madaxda Soomaalida ah inay isugu yimaadaan inay ka shiraan ama ay ka hadlaan arrimaha doorashooyinka kulankooda uu ka dhacayo xarunta Villa Soomaaliya meel aan ahayn Villa Soomaaliyana shir aysan ku yeelin madaxda Soomaalida kuwa talada haya iyo kuwa muxaafadka intaba warkan waxa uu meesha ka saarayaa wararkii saacadii la soo dhaafay saddex mariyay kaas oo sheegayay in dawladda Soomaaliya iyo waliba xubnaha mucaaradka ah madaxdooda ay ku shirayaan xalane halkana ay ku qaadanayaan kulan uu dhaxdhaxaadin doono Mareykanka oo ay uga hadlayaan arrimaha doorashooyinka wixii warar ah soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan haddii ay beedmo